تدي سلع باري ومدي مارين هوا وحون أيام لما كان يهي مولود نوصو معي ومدي مارين هوا وحون أيام لما كان يهي مولود نوصو معي midni mawartiyo nabad allowna gudeer midni mawartiyo nabad allowna gudeer safar ayaan ka imid oo waan daalanaa shaloo dhan marka saakay waa inaan u tagaa ninkii sheekh abuuseef ahaa السلام عليكم شيخ أبو سيف. وعليكم السلام. وردد مغناية المرايمي وشيخي شيخ علاد. ها تفضل سولو حالك سفر يسو. واتاي حالي أياني مدو سفر يدال وحان كاهن وان كان نبت قبا إذنك حالة دينك ورما horta Abu Colaad oo alla mahadi aad ayaan u fiicanahay hawlihii abaabulka ayaan wali ku jirnaa ayaan isku ogeyn adiga adii ee bidmaayo waa taan warkaas sugeynay waana alla mahadi haduu alla ku soo nabad celiyay waata ha waan socdaa aniga mashruucaas ayaan u imid inaan weyneyno oon ballaarino warbaluka taas aynoo dambeysay maalmahan dhaqaale darro ayay wax nooga xakanayeen mar horaanu ka jiba gaari lahayn marka hawshu dhaqaalay u baahan tahay sheekh taasi ilaa xad waan iswadi karnaa anigaana nooga wakiil ah si abaabulkeenu aan u dardargelino wax xoogaa dhaqaale ah oo aan howlaha ku sii socodsiisanana waan haysanaa ballanqaadyo dheeraad ahna waan naloo soo sameeyey wadamada aan safarada ku soo maray bilaash uma tegin oo arrimahaas dhaqaale ayaan meel soo saaray ma garatay waad asiibtay haddii aad dhaqaale noo hayso lagu soo jiidan karo haddii aad dhaqaale noo hayso waad asiibtay haddii aad dhaqaale noo hayso waa waxa kaliya ee bini aadamka lagu soo jiidan karo hawlaha iyaguna ku fuli karaan waata maasha allah laakiin ma garan kartaa sida ay noogu suuragelayso inaan ummadda soo jiidanno taasi waa hawshayda maxaanba kala soo bartay waa inaan marka hore dadka diinta ku jilcinaa oo aanu xaqiiqada uga hadalnaa jidka toosanna aan ku ridnaa kadibna intaan ku dhaxoogaysano yaa hadee ku dhaxoogaysano maasha allah maamulka aan la wareegno maasha allah waa runta laakiin geed marka la abuurayo jidda hoose ayaa laga waraabiyaa waa gartay si uu laamo fiican u dhalo bulshadana carruurta iyo dumarka ayaa laga soo bilaabaa waa gartay ee taas weligaa ogsoonow waayo iyaga ayaa bulshada saldhig u ah ma garatay afka alla kaama gooy waa runta waa inaan keenno farsamo cusub oo ka duwan wixii hore waana inaynu xaqiijino inay meel martay farsamadaasi subxaan allah ta kale abuu seefo waxaan kuu sheegayaa haddii aan qorshaha sidaan la yeelin danaheenna ma soconayaan waxna inoo hagaagi mayaan marka waan ku khasbannahay in aan sidaa yeelno waa inaan si wacan bulshada u dhex galno oo naloo aqoonsado in aan nahay dad toosan oo wadada wanaagsan ee mustaqiimka ah u horseedaya ummadda waa sax meel fiican ayaad baatay haweenka iyo carruurtana waa kuwa bulshada ugu nugul ee aan durba u hanan karno soo moogid dhallinyarada haddii la wacdiyo siiba haweenka oo aad u qalbi jilicsan
wadada cad ayaan ku toosinaynaa danaha iyagana si fudud ayaynu ku gaaraynaa war ma garata haa waa runtaa oo wiil kastaahi hooyadiis buu si fiican wax uga maqlaa oday kastana xaaskiisa ayuu dhagaystaa wax kasta oo bulshada ku soo kordha hawshan waa bilow wanaagsan oo aan ku guulaysan karno waxaan rajaynayaa insha allahu inaan rajadeenna noo hagaagayso saaxiib abu seef haddaba hawsha waa inaan si dhaqsa u guda galnaa insha allahu tacaala haa waa inoo sidaas hadda wixii ka bilowda waa inaan qorshaha bilowga ah aan bilownaa adigaana garanaya meesha aan ka bilaabayno taasi waa basiid waxaynu ka bilaabaynaa ma garanaysaa madarasooyinka carruurta iyo haweenka guryaha jooga baynu ka bilaabaynaa waxaynu abaabulaynaa isu soo baxayo aanu dadka wax ugu sheegno ma garatay siyaasiga aanu maada ifahad waa tahay ka soco dadka yani meela soo baxyo banaan baxyo aynu abaabulaynaa si aanu ugu gudbino ujeedooyinkaygii subxaan allah waa runta isha ayaad ka riday ee aan ku dhaqaaqno hawsha khayrkan oo kalena shacabka horay looguma sheegin anigaa kaa ogtaa waa tahay yaasaa inoo ballan insha allahu tacaala saasaa inoo ballan okay horta ninkii abu seef ahaa si fiican baan mashruucan u geliyey anigii buubay ka daray oo waa daacad maasha allah maxaase iga galay waan ku daraysanaynaa waan ognahay in aan la-aantiis waxba qabsoomayn maadaama bulshadan inteeda badan ay si fiican u yaqaanaan una ixtiraamayaan ninkaas sheekhaasi isaga ummadii marin hawa wuxun ayaa lalamaatan yahay mawlo noo soo faaduma ii waran walaal see tahay nabad walaal caasho oo maanta wadaadadu maxay isugu keen waceen faadumooy caasho war jiraaba cakaaruu imaan waa la ogaan waxay inoo waceen waa kuwa hadda raba inay qudbeeyaan waa yaab intaasoo sano wadaadna ma wicin maanta waxay inoo waceen kollay waa wax wanaagsan wadaad weligii wax ma halayn jirin waxbuu sixi jiray haddaysan wax isbedelin haddeer laakiin caashoy wadaad tusbax wataan arki jirnee wadaad qori wata hadda ayaa inoogu horeysa sanadkan ka hor ma arag mana maqal na ams khudbadii baa bilaabanaysay ams assalaamu calaykum walaalayaal ilaah ayaa mahad leh oo isugu kaaya keenay maanta halakan waxaan isugu nimid oo idinku yeeray inaannu ka hadalno dhibaatooyin jira oo aanu dulqaadan weynay haddii aan nahay culimmada dhibaatooyinkaasoo gaar ahaan ugu dhacaya haweenka iyo carruurta iyo inta bulshada ugu tabarta yar taasi waxay noqotay midaan ka dhidhino waayo waanu dulqaadan weynay boobka dhaca jidgooyooyinka ma doonani in marxaladan adag lagu sii jiro waan ka hortegaynaa nafteenna waan u huraynaa hase yeeshee waxay taasi ku xidhan tahay sida aan garab idinkaga helno idinka iyo guud ahaan shacabkaba ma garanaysaan shacabka aan garabka ka doonayno waa idinka joojiye sacabka waa camal shaydaane allahu akbar maanta kadib waxaan qaadanaynaa tillaabooyin aan idinka wax idinkugu qabanayno oo aan dhibaatada aad ku jirtaan idinkaga saarayno sababtoo ah waxaad tihiin haweenkeennii carruurteennii dadkeennii waxaadna ogaataan in maanta wixii laga bilaabo carruurta waxaanu u furaynaa waxbarasho dhinaceenna ah madarasooyin u gaar ah baan haddii eebedmahayo ku xarayn doonaa taasoo aan kula dagaalamayno in carruurta la baadiyeeyo teeda kale nabadda annagaa ku filan cid aan u baahannahay inay bannaanka nooga timaadana ma jirto tan kale ee muhiimka ah waxaan idin sheegaynaa suxufiyiinta iyo weriyayaasha waxyaabaha ay qorahayaan iyo wararka ay tabinayaan waa inay nala socodsiiyaan ciddii dirta war aan annagu ogeyn iyadaa ka mas-uul ah
hadalka inaan kusii dheeraado ma doonayo walaalayaal waxqabad ayaana looga baahan yahay intaas ayaan hadalkaygana kusoo koobaya wasalaamu calaykum allahu akbar matadii silic baa hareeyey nacaasho maxaa kaaga baxay khudbadii wadaadada iyo hadalkoodii halla faadumooy wadaadada khudbadooda wax fiican baa iiga baxay waa loo baahnaa way naga soo daaheen inay mar hore noo yimaadaan bay ahayd ilaah baa haddase noo adeejiyey waxaaba anigu aan ku aaminayaa wadaadada isbaarooyinka ay qaadeen sax dhicii badnaa ma jiro waa run magaalada habeen hore waxaa la sheegayay kuwa tuuga ah intay qabteen bay gacmaha ka gooyeen maskiin markaati xitaa lalama sugin kow lug iyo gacan isdhaafa waaya laakiin waxaan ka baqayaa anigu faadumooy dhallinyaradii way baahan tahay shaqo ma hayaan hadday sidaan ku socoto waxaan cabsanayaa anigu magaalada in la arko dhallinyaradii oo wada lug iyo gacan maqan tahay maya ma dhacayso taas waxayna u dhacaynin hadday arkaan qof lug iyo gacan la jaraayo bani aadan baan kuu aqaanaaye cid wax hadda la arki maayo faadumooy waxaan la yaabanahay maxay carruurta ka rabaan maalin kasta waa iyaga sii wada oo meelo ku xareeye naa maxaa dareentay adigu oo aad saa u leedahay carruurta diintaa la barayaaye maye waxaan saa u idhi carruurtii oo waxaa isoo gashay firfircoon oo jihaad hadal haya iyo erayo kale oo aanan weligay carruurtayda ka maqal adigu waxaasaadba ka hadlaysaaye anigu waxayba yidhaahdeen carruurtaydii xisaab saynis iyo kimistriga la baranaayo haddii diinta si daacada loo barayo oo aanay wax dhibaato ah oo kale hoosta ku wadanin waa wax fiican khayr allaha siiyo wadaadada waaban u baahnayn run ahaantii isbeddel weyn baa ka jira deegaanka sax dadkii baa wada cimaamado qaatay waa cimaamad marka waxaan u malaynayaa tanu inay tahay tii aanu ku toosi lahayn oo aan dhibaatada uga bixi lahayn muddaan dhibaato ku jirnay marka caashooy ilaahay ha inooga dhigo tii aan mashaakilka uga bixi lahayn aamiin waan rafaadnay waan dhibaatoonay waa run imisaa inaga dhimatay imisaa inooga dhaawacantay imisaase inooga qaxday waxaan la yaabanahay laakiin odayaal beeleedyadii maxaa helay halkayse ka baxeen oday beeleed kacdoon baa kusoo kordegay marka fursadba uma haayo inuu hadlo yaase ka dhagaysanaya warkiisa waa runtaayo mar haddii diinta dhinaceeda la iska soo galay oday beeleed hadal uma yaalo ee ilaahay khayr ha inooga dhigo culummada aamiin wax khayr leh allaha inooga dhigo aniguse wallaahi bilaahi horta fikradan aad baan ugu farxay haye ofa imaan doonaan allahu aclam ilaah baa garanaya caasho horta faadumooy culummadan inay wax wanaagsan wadaan baan u malaynayaa meelaha nimankii taagtaagnaan jiro qaadka iska cuni jiro salaada aan tukan jirinoo maalin kasta waxaa kastaa masaajidka iyagoo galaya dharkii dhaqday nadiif ka dhigtay balse waxaan lacag badana dadka way siisiinayaano kolley ma garanayo kolley waa fiirna aad ugu faraxsanahay wiilashaydii wada qamiisay xirteen khamiis baa loo wada xiray bay wada xirteen jeeris iyo balaayo iyo shaatishiine si balaayo ugu dhibi jiray allahu akbar baa magaalada ka socota iyo hoy waxaan rabaa cimaamad aad baan wallahi ugu farxay allahu akbar baa socota gabdhii yarkaa xitaa goonooyinka dhijiska aftada ay ku dhijin jireen laga reeb iyo saakaa loo xira bal aan aragna waxa dambeeya assalaamu calaykum dige wacalaykum assalaam sahal mudana soo dhawow waa dhawahaye xaaladdu waa sidee maalmahan waa yaabanahoo beryahan waxbaa kusoo dhacdhacaya dhagahayge wax daran ma jiraan laakiin waxaan maqlayay culammadii inay isugu yeereen dumarka iyo carruurta oo keliya say wax u jiraan bal ii waran maxaa haweenka iyo carruur keliya loogu yeeray oo raggeenna
waaweyn loogu casumi waayo shirakan? ma garanayo ujeedada ka dambayso, laakiin waxaa igu maqaalo ah in damac siyaasadeed uu galay nimankii culammada ahaa. maya taas ma dhacayso. culummo iyo damac siyaasadeed isma qaadan karaan. taas waan kaa diiday dige, waayo maba ahan wax aan hore u soo marnay ama u maqalnay oo aan aragnay. culummada sahalow, culummada sow bini aadan ma aha oo soo dadka lama mid ma aha. aniga dhib uma arko ilan haddii uu damac siyaasadeed qaaday, laakiin waxaa qalad ahayd in ay dumarkii carruurta oo keliya u yeertaan. horta culummada dadka waa la mid yihiin, laakiin siyaasad iyo culummo iyo weliba hadda oo aan in muddo ah aan kusoo dhex soconay dagaallo sokeeya iyo dhibaatooyin aan kusoo dhex soconay, ma filayo mana loo baahnayn in xilligan ay qorshahaasi bilaabaan. waxayba ahayd in ay nabadda iyo dib u heshiisiinta ay ka shaqeeyaan oo ay dadka labadaasi ku wacdiyaan, qoryahana ay iska dhigaan. iyagaaba qoryo sitee xaggee lagu arkay oo lagu maqlay wadaad qori sita? culimmadeennii hore kitaab iyo tusbax ayay qaadan jireen. ixtiraam aad iyo aad u weyn baana loo hayay. sahalow saaha oran, inkastoo damac siyaasadeed uu jiro oo culummada uu galay, haddana qudhayda nin weyn baanahayoo waxaan ka yara cabsi qabaa oo dareen iga galay dumarkan iyo carruurta ay si gaara ula hadleen. waayahe maxay dadku ku yidhaahdeen? dumarkii carruurta ayay isku dubariteen, waana isku urursadeen. kolley waxaan ka garanaya islaanteedii iyo islaamo kaloo aad bay ugu sacabtumayeen. waxaan u malaynayaa laakiin in xaalad cusub iyo weji kale oo dagaal u jiro. waxaan kuu sheegayaa yaanan ku degdegin walaal, oo aan horta hubsanno in culummada xukunka siyaasadeed wax ka rabaan iyo in kale. waayo waxaan isleeyahay amay dar alle dadka ugu dadaalayaan oo ay rabaan in ay hanuuniyaan si ay diinta u bartaan. ilaan haween iyo carruur siyaasad waxba kama yaqaanaane. sahalo, waxaan ku weydiiyey isxiqaamkan hadda yimid ee aan horey u jirin muxuu ahaa? haddana damac siyaasadeed ha jiree waxaan ka wada tashanno oo aaniyanu ku degdegin arrintaas. waayahay hadda dhib ma leh, waxaase noo furan inaan annaga iska aragno, kadibna iyaga aan la kulanno oo aan ogaano ujeedadooda iyo waxay u dan leeyihiin. raggaas saankooda ayaan arkaa sahalow, u malaymaa inay yihiin fidna wadayaal. waxaa ka dhex muuqda uu ku jiro horseedna ka ahaa odaygii aan wada garanayna abuuseef. balse aan iska aragno odayaasheenna iyo culummada si aan uga tashanno. kolley ima muuqdo hadda wax fidno ah, laakiin waxaan u malayn karaa in uu rabsho ka imaan karto. sahalow, waan aqaan abuuseef, waa wadaad aad u wanaagsan. hase ahaatee hubsiima hal dhan baa la siistaa ee aan hubinno in ay wax iska bedeleen, ilaan waa bani aadane. waa hagaag sahalow, waynu isaga imaan doonaa arrinkaas, aynu iska aragno. waayahay digow, waayahay meeshaas haynoo matadii silic baa hareeyey. ummadii marin hawa wuxun ayaa lalamaagan yahay. mawlo noo soo macin. ummadii marin hawa wuxun ayaa lalamaagan yahay. mawlo noo soo macin. midnimo waartiyo nabad allow nagu deer. midnimo waartiyo nabad allow nagu deer. السلام عليكم يا شيخ علاء. وعليكم السلام. soo dhawow sheekh abuuseef, aad iyo aad ayaan u fiicanahay. waxaan u malaynayaa inay markaan guusha iyo hadafka aan lahayn inoo soo dhow yahay. bal ii waran, wejigaaga ayaanba ka dareemayaa in aad ku faraxsan tahay howlahaan kuu diray sida ay u socdaan.
هادي صاحب هادي يا شيخنا هادي أيام أقول سنة إن شاء الله ولي أنا إلى هير كان أو دن مفلين فيلم واعي يقول نقطة سيدا نلوك صوب حي ونلوك تابعي أو أيدتكو إنو دنبيان أما نلوك رياقي وحام بإسلية هاي وان صودهني إن المرهنة دات كان وإيمانا أي أهد hadda waa inaan tallaabo kale sii qaadnaa oo ciidan badan oo degdeg ah u qornaa si aan ammaanka guud ahaan u sugno war makaadhab waa khasab taasi ummadda waa inaan u shaqayno see weye waa khasab taasi abuuseef ummadda waan u shaqaynaynaa annagana wax fiican baan shaqaysanaynaa adduunyo iyo aakhiraba oo ninna dan la-aan uma howlgalo ma garatay waa la socotaa bay ila tahay in ajir badan iyo xasanaadba aan ka heli doono hanuuninta bulshadeenna saas wey hadda waxaa laynu ka baahan yahay inaan raadino wadaadadii carruurta wax bari lahayd inaan dhalinyarada hadda waa saas sheegaysid weye hadda waa inaan raadinaa wadaadadii carruurta wax bari lahayd ilaan dhalinyarada in ciidan laga dhigo waxaa ka horeysa in la sheego faa'iidada uu jihaadku leeyahay iyo wanaagiisa iyo waxa ay difaacanayaan iyo weliba sababta aan uga dhigayno ma garanaysaa haddii beedmahay ciidan noo adeega oo danaheena noo ilaaliya oo taas macnaha inaan marka hore ku dhiirigelino oo aan tusno madaariso kasoo bilaabo nacam laga dego waad asiibtay macalin anaga kuu haya oo aan waxba loo sheegayn waa nin waaye arag ah oo howlahaas yaqaana laakiin waa in dhaqaale loo sheego oo marka uu tababarka dhammeeyo la abaalmariyo waana macalin qaali ah ee la soco magaciisa macalinkaas macalinkaasi waa lagu yaqaan waa macalin doofiye macalin caadi ah ma aha macalinkaas magaciisa uguma cusba meelo badan ayaan ka maqlay in carruurta uu wacdiyo aanay gadaal usoo laabanna waaba la ii sheegay waxaana laygu arso tan kala day macalinkaas keligiis laguma filla inaan helnaa macalimiin badan oo howlahaas qaban kara waayo carruurta aad bay usoo badanayaan hadda tarab u keenayaan subxaan allah hawsha waa bilow saaxiib waana isleeyahay macalinka hadda waa nagu filan yahay inta aan bilowga nahay oo si fiican dadka inoo baranayaan saaxiib waxaan meesha ka maqnayn oo kale ku sheegaya marka nala barto inaan cadow badan yeelan doono taasina waxaa loo baahan yahay in aan hadda ka taxadirno oo aan samaysano hab maamul oo ka taliya deegaan kasta ilaa aan ka gaarno heer qaran iyo weliba heer caalami waad asiibtay waa sax saasaan u baahannahay inaan hawsha u dardargelino oo aanan ka fariisan saas u socoto waad asiibtay saaxiib waan kugu raacsanahay walaalkay ganacsatadana waan la shiraynaa waayo ammaankooda ayaan sugaynaa waa in iyagana aan si hoose ula shirnaa oo aanay qaadin tallaabo aynaan annaga ogeyn wax walibana waxay noqonayaan sidaan ugu talagalnay ilaa aan hadafkeenna ka gaarno saaxiib waa tahay abu colaad waa inoo is arag dambe nabada insha allahu tacaala wabilahi tawfiiq saaxiib waa tahay ummadii marin hawa wuxun ayaa lalamakan yahay mawlo noo soo ummadii marin hawa wuxun ayaa lalamakan yahay mawlo noo soo midnimo waartiyo nabad allow nagu deer
iyo nabad allowna gudee allowna gudee warsamow talow maxaa ku dhacay abaadir uuba soo daahee wuu imaanayaa balqada yar aan u kaadino okay waaba isagaan u malaynayaa qof kale ma sugaynay عاش نودامو waan fiicanahay sidee tahay adiga الحمد لله وصداه إن إجرال لها وستوى مشغولية waa walwalaayo maanta oo dhan maxaa ku dhacaa masdahaya الحمد لله يا كل جوجا warsama ila joogo هاي ورسم سيتها نودامو waan fiicanahay bal adiga ii waran maanta waad aniga soo dheeraatee الحمد لله wax dheeraad ah oo majirin shida ma jirto ma kaste marka wax way lamadan bari waxaan aad u la yaabanahay oo dhagahay ku soo dhacay xaaladan wadaadada aad loo hadal haya haddii biibad tagtid ayaga la sheego haya baawar ayaga la sheego haya dadka aad ay ugu mashquulsiin arrintaasna noogu soo korortay taasi waa run waa wax cusub ma aha isbuucyadii ina soo dhaafay oo dhan sidaas bay ahayd adiga dad waaweyn oo maqaaxi iyo gawaari dhexdooda ku doodaya baad ka sheekaynaysaaye anigu waxaan arkay carruurtayda iyo kuwa aan waxba dhaamin oo saaxiibadood ah oo hadalladaas waaweyn ku wada sheekaysanaya yaaba joogay maalinta oo wadaadada dadka iskugu yeereen wax sax maahan wax khalada maysan ba sheegin هنونا الفالهاي إنا لله وإنا إليه راجعون إلى حافظ دن اسكو مدواي أنيقا هذا أني ما ميل أي كشرين ما بأوجينه لكن المهيجا حاس كيجا أماش تجين هذا يفالهاي وداد هنونا يفالهاي لكن تاسو حقيقة درن أني سدح علمون أني قدالي كوتا من جرئه كوتا من لما جرئه كوتا من أفر جرئه اسكولكي ديدين اسكولكي waa joojiyeen waxay dhaheen iskoolkan oo cusub wadaadada furooyin oo diinta aan gelina abaadir mashaakilkaas kaliya ma aha kula mid baan ahay aniga iyo carruurteyda waaba kula dagaalamay arrinkaas hooyadood ayaga ayay la safatay oo waxay ku raacday in iskuullada cusub ee wadaadada ay u wareegaan maantadan waxaan guriga dumaashiday caasha u imid in ay la hadasho walaasheed oo carruurta ay habeeyarta u tahay oo ay ka dhaadhiciso in iskuulkooda aysan ka bixin oo ay sidii caadiga ahayd u wataan aniga waxaan islahay horta saaxiibada horta soo wareeso dadka dhan waa kula qabaan arrintan marka saas leen u imid caashin bal aan weydina horta shaahan cabba wadaadadan wax xumaana hadda ilaa hadda waxba kama arkayo way toosan yihiin diintiina way noo bareen carruurta ilaa hadda wax xun kama arkin ammaankiina waa sugeen horta ciyaalka si toos haddii wax loo baraayo waxba ma qabno laakiin iyagoo iskoolkoodiina dhigahayo diinta ma bari karaano anaka markii oo iskoolka dhigaheeni dugsiin waxaan ka bariheen dugsi qur-aanka waxaan bariheen diinta ilmahaan la leeyahay xeraa la geeyaha qorya loo dhiibaa diintay difaacayna diinta yaa soo weerari diintan yaa soo weerari abaadir waan kugu raacsanahay arrinkan cid diinta soo weerartay ma jirto ee farsamo kale oo siyaasadeed baa ku hoos qarsan soomaalideena 100% muslim baynu nahay oo weligeenba waanu ahayn ma haddaan bilaabaynaa in aan diinta muqadaska ahi weerarno anigu waxaas wax dhici kara uma arko ee waa in aan ka tabaabushaysanno sida aan ka yeeli lahayn arrinkani dumaashiyaalow maxaa inagu dhacay ood la degdegaysaan aan aragno siday wax u maamulayaan culummada haddii ay noo keenaan maamul fiican oo sidan dhaama waanu arkaynaa oo waa sidii la rabay wakhti bal aan siino annaga naftirkeena yaanu degdegine mar haddii ujeedooyinka ay lahaayeen ay gaareen cid hor istaagi karta ma jirto tala faraha waa ay ka baxday hub fara badanna waa ay haystaan hadalkooda cid hor istaagi karta ma jirayso intay goorigoori tahay waa in aan carruurteenna dib u ceshanaa warsame wax loo baahan yahay waay wax loo baahan yahay waay inaan ka fiirsan waayo arrintan haddina salaadii duhura la gaari duhurka aan soo tukano horta makasino ilmahan ilgaar ah inaan ku fiirino waay oo xaaladooda la socono saas waay oo qadadii baaba la gaaree halkeed aadaysaan fadhiista qadeeye horta maya dumaashi ani dad kale oo balansanahay maanta qadada makasino marka maanta waa tufantaha qadada adi ma noo timaadado dumaashi markoo haye bal anigana reeraha soo booqan mar
ها naga soo wardoon fursad naga aan soo helo. wardoon ha saas waay naga soo wardoon alis xariiri aniga qudheedu waan tegayaa oo abaadir baan hore usii raacaya ina kaxee abaadir waa tahay caasho waa inoo mar kale okay nabad iyo khayr baan nii rajeynayaa insha allah عتدي سلع باري ومدي مارين هوا وحون أيا لا ما كان يهي مولو نوصو معي